توفى laga soo qaaday wasaaradda beeraha marka wasaaradda beeruhu ma Soomaaliland ba wasaaradda beeraha Jumhuriyadda maxay tahay Soomaaliland aan u ilaalino okay kilo yeelsi oo hay'adda ugu wakiil ah marka todobada foosto waxaan sunbahay 2004 laakiin markii halka kala dhisay halkee laga keenay meel aliyada meel laga keenay sun waxay dhex horjeeday wasaaradda beeraha marka meel la dhigo ayaa la waayay wasaaraddiina oo qortay oo soo qaad keenay urteed baa si fara badatay kadibna konteena maxay ahaayeen todobada foosto markaas waa sun poison bay yiraahdeen soo todoba waxa loogu talagalay markaas markii hore moojo wallahi taas wax isku jiro waxa sunta hore meesha markii hore xeerdo lahayd weeyaan oo nooceedo kale la ka sii in la dhigay miyaa la waayay waxa loogu talagalay la dhigo la waayay dhowr goor baa ayuu ciiri injineerkii duqa casmada waxaan ku aasay meel baan ku aasay wada ka qaadaya laakiin foostooyinka la lagu tiriyay hadda konteerka meel baa laga keenay iyaga yiri shaqaalaha meeshaan ugu yiri meel baa laga keenay yar waxa la dhigay beerahay taalibaasho hadana beerina oo soo qaaday kadibna halkan lagu xiray wax dhibaato ah oo ay leedahay ma aragtay kulli dhibaato waa sun weeyaan kullina sunta waxa dad loo xiriiriyay kulli dhibaato way leedahay digil waxa ka taran kaleetaas anagu fariimo badan oo dirnay wasaaradii aan shaqaaloogu wana wasuudo kulli warkuu iska cad yahay laakiin si kulli hadda iyaga laftoodu ma dadaal yara hawshana kulli anaguna ilaaliyaal baan iyaguna kulli wax ka qabtaan لكن أنا بسوق هذا الكرتين سواء الله دلنا نقول بدل ما تشوفونه والله ماشي واحد يعني تذكروا قبل تاكل يبي خوري سوق كويس أنا كل ما لعب كويس كسرنا مركب كم قناة قال أنت مشوفه بدل أمر كلا لنا حولها وإحنا وش كذا كان لكن مش وين تهو كل ما مجالس نوع أنت أنا قلت ذلك يوم يرى إلى أنت بس واحد عندي كل يعني hay'adda arada ayaa galay labada xasus ku galay xarunta dhexyaal halkan waxa yahay wallahi waxa loo jeedo markii hore magaalo qaloocan istiyaag markii way magaalo qaloocan waxa loo bixiyay light bay lahayd magaalada aysan online lahayn marka qofku kaasoo kala soo istaago ayaa magaalada leedkeedu soo bixi jiray sano jir waa maxay magaalada ay rasiid dadku wax u yaqaanaan asal ahaan baxda xilligood سنة أبغى شغال تري نتيجة الصفار كذا ديار ده حوشله أبغى تقيس شهر من الباب بقول وحي شغال تري لو البوش كذا سيدا واحد الدولة دي رود سام كوبتين بينك تاجن واحد كوبتي يعني توماليس تانين يقول له رينشري بك شغال تري رينشي يو توماليس تقابل سنة بالبيت اللي ترى بكون تاني يعني قيب تروح يتوقع قيب تجيرش كا حروين وده بلارن بهاد مقرنسا marka hargeysa waqti bartay iduna markii uu la bartay intii ka dambeysay inta aan ku beelalinay guud ahaan imisa xafiis bay ka koobneed xiradan imisa qaybo xafiiskeedu ugu weyn xaasbo ma shaqooyinka ay qaban jirtay shaqooyinka ay qaban jirtay waxa weeyaan shaqooyinka ay qaban jirtay waxa weeyaan qof walba shaqadiisa waxa weeyaan qayb dhismaha aad jirtay qayb rinjigaas baa jirtay qayb mechanical baa jirtay qayb بجرتي كل حول شقاية كلا جبنيسي كم يقومنا إنه نتقالنا كحر لكن حرد وحي أي تمام محتوى حتى إذا توصل دولار رجيم شرتي مركي دمبيزيات بالروس كي بيرها أو كاري كاش مركا يقولون سنة كاش كي بخاطر أيال قحي إيرير كي تقال مقدس وين اللورس مركا ورا حردان الله أساس أي حرقيسو كليا بقول تقالبين ما يدري واحد حرنته وين جيس كافي كباص سلطان حراية واحد سامين هاي كل هذا هي تطلع شاركة هي تيجان كقوامير هذا جوا دقنتها بشرتها كل هذا واصل واحد أنا واصل مقرنسا هذا لكن أنا والله يعني وأنا أقول أنا أنت أسنون تشوفني لا أنت وقتك لسوق لون تشوفني كل يرتدي دون دبتمو يعني لكن تد إلتك يو عن هذين يقولوا يشري تصالحان إن بدن بابي كشغلين يعني ماشي حقوق السنوكم مقنتهاي وحو يا شيء إلتك يا شيء صنعت مرة كقارو حنصاوي نابين سنت سبدش تنتهي اللي بابي كشغلين الله جدير كشغلين هاي لا يد مركي إنجليز وكتير كور كشغلين هاي وقتك مركي إنجليز قال لي ركبه وشو سنت عايح waxay ugu leeyahay badnaa iyadoo oo meeshii baabaaday markii horena aanu meesha aanu ku kornay been lagu koriyay ahayd oo xuquuqdeedina ku maqan tahay
haddana waxaa noogu la yaab badnaa markii annagoo suntan kaleba la yaabanee meesha marka hore hangarkaa weyn daadsanayd 7 foosta noogu la yaab badnaa in lagu soo kordhiyey ama dad iyaga laftooduba isleeba tan wax ka sii dayo oo furtaba oo aan ka ilaalinayno inay iib geeyaan badoonay maxay iib geynayaan markaa ma waxay iib geynayaan dadku haddaad halkaa dhagax dhigto waxay moodayaan inuu lacagi marka daamurkaas iyo suntaaba dadka waan isku leeyahay daran dhibaato badan baa lagu sugay laakiin waxa la xukuumadda jirta meeshan suntan iyo waxa bay naga hagaajiyaan waan uga fadhinaa in badan baaqa fara in laga hagaajiyo way wacad oo wixii annaguna wixii aanu ka ilaalin karno ka ilaalin dawlad xukuumaduna waxa weeyaan deegaanka koontiinarkan iyada ku xidhay hay'adaha ugu yeedhay marka wallahi in meeshii la dhiso oo la hagaajiyona waan ka sugaynaa hay'adda qof nin uu qaabilsan xafiis beeraha ku dhexloo jiraayo hay'adda uu qaabilsan oo xafiis ku dhexleeyay wasaaradda marka kullu meel laga warhayo laakiin dadka baa la baaray dhiigooda iyo xoolaha iyo waxa WHO ay soo dirtay kadibna inta aagu iska caafimaad qabin uu fiicay ya uu fiicay bilada dhibo ay dadka ku haysan ma jirto bilada daawadayaal sida idin muuqata halkani waa duleedka magaalada Hargeysa gaar ahaan xeradii Suntaaya diinkana sida aad arkaysaan waxa uu 4 cagood la galay daamur goobtan yaala oo loogu talagalay in lagu sameeyo wadooyin goobtan waxa ku nafwaayay diiman badan ma aha diin karo kaliya arrintan waxa ay u baahan tahay shacab iyo dawladdu in wax laga wada qabto